Assalaamu calaykum. Laba xayawaan oo kala nooc ah inay farac yeeshaan aad ayay u yar tahay. Xayawaanada wax kala dhali kara ayaa waxaa khasab ah inay isku nooc yihiin amaba ay isku dhow yihiin. Tusaalaha ugu caansan ee xayawaan iska dhalka ah ayaa waxa uu yahay baqalka oo ay kala dhaleen dameer iyo faras oo kumanaan sano dadku yaqaaneen kuna shaqaysan jireen. Laakiin xayawaanada kale ee aan maanta ka hadlayo badankood ayaa ku yimi markii ay dadku raad ku yeesheen taranka xayawaanadan. balse intaanan u gelin ka hadalka xayawaano kale oo iska dhal ah ayaa waxaan rabaa inaan faahfaahiyo sababta keentay in xayawaanada kala gedisan aysan ilmo iska dhali karin. Hadda ka hor ayaan waxaan ka hadlay DNA-ga, dadka qaybtiisa ayaa fahmi waayay, marka waxaan rabaa inaan si kala u dhigo. Barnaamijyada cunto karinta ayaa inta aysan bilaabin waxa ay sheegaan waxa ay ka kooban tahay cuntada ay karinayaan, oo tusaale ahaan waxa ay dhahaan waxaad ku dartaa saliidda hal basal ah, 2 yaanyo ah iyo intaasoo baradho ah iyo wixii la mid ah. Markaas kadib ayaa suugadii la rabay la samaynayaa. Haddaba DNA-ga ama hidda-sidaha waa sidaasoo kale, waa sidii buug uu ku qoran yahay sida jirkaagu u shaqayn lahaa iyo sidii u ekaan lahaa. Unug kasta oo jirkaaga ku jirana waxaa ku dhex jira DNA-gaas ama hidda-sidahaas. Xayawaanaduna sidaasoo kale ayay u shaqeeyaan oo DNA-gooda ayaa kontaroola sida ay u eg yihiin, hadday geesa leeyihiin iyo hadday miciyo leeyihiinba. Haddaba DNA-yo fara badan markii la isku aruuriyo ayaa waxaa loo yaqaan chromosomes. Chromosomeskaas ka samaysan DNA-ga ama hidda-sidaha ayaan ka dhaxalnaa waalidkeen, oo aabbaha waxaad ka dhaxashaa 23 kromosoom, hooyadana waxaa ka dhaxashaa 23 kromosoom oo wadartoodu isku ah 46 kromosoom. 46da kromosoom waxaa ku jira macluumaadkii jirkaagu u baahnaa oo dhan si uu u shaqeeyo. Xayawaanada ayaa sidaasoo kale uga dhaxla waalidkood, marka sababta ay u adag tahay in xayawaano kala gedisan ilmo iska dhalaan ayaa waxay tahay in tirada kromosoomyadoodu kala duwan tahay, taasoo macnaheedu yahay inaysan ilmo wada dhali karin maadaama macluumaadka DNA-gooda ama hidda-sidahoodu kala duwan yahay. Xayawaanada isku dhow kaliya ayaa mararka qaarkood ilmo iska dhali kara, waana kuwa ka mid ah. Laygar oo ay iska dhaleen shabeel iyo libaax oo ka wada tirsan qoyska bisadaha waaweyn. Magaciisa ayaa waxaa laga soo gaabiyey lion iyo tiger oo Ingiriiska ah shabeelka iyo libaaxa. Haddii Soomaali ahaan loo soo gaabiyana waxa uu noqonayaa libeel. Bisadan ayaa labadeeda waalid waxyaalo kala duwan ka dhaxasha, laakiin mar walba waa ay ka weyn tahay shabeelka iyo libaaxaba, oo waxay noqotaa mid xajmigeedu aad u weyn yahay, taasoo siisay naanaysta ah bisadaha tan ugu weyn, waxaana uu culayskeedu ka badan yahay 400 kiilo. Bisadaha kale ee waaweyn ayaa qaybtood la tijaabiyey inay iska dhali karaan, sida xayawaanka jaguarka loo yaqaan oo ay iska dhaleen libaaxa iyo jaguarka. Bisadahan ayaa waxaa lagu hayaa beeraha xayawaanada wadamada qaarkood oo ah meesha ay ku dhasheen. Xayawaanada iska dhalka kan ugu caansan oo kumanaan sano dadku yaqaaneen ayaa ah baqasha oo dameerka iyo farasku iska dhaleen. Sidaasoo kale ayaa dameer farowga iyo dameeruhu ilmo iska dhali karaan. Sidoo kale fardaha iyo dameer farowga ayaa iska dhali kara ilmo maadaama ay isku dhow yihiin, iyadoo dhashaasi inta badan dameer farowga ka dhaxlaan calaamadihiisa madow. Xayawaankan kale oo soo socda ayaa waxaa la dhahaa kama oo laga soo gaabiyey camel iyo llama. Haddaba laamaha waa xayawaan ku nool South America oo waxa ay qaraabo dhow yihiin geela. Iyaga kaliya maaha ee South America ayaa waxaa ku nool xayawaano kale oo lagu tiriyo qoyska geela. Xayawaanadaas ayaa waxaa ka mid ah albaaka, vicuna. Haddaba maadaama ay xayawaanadan u dhow yihiin geela ayaa imaaraadka waxaa la isku dayay in la ogaado inay ilmo kala dhali karaan. Maadaama uu ratigu 5 jeer ka xoog weyn yahay ayaa laamaha si artificial ah loo ureeyay. Haddaba sanadii 1998 ayaa waxaa dhashay kaamihii ugu horeeyay, waxaana loo bixiyey Rama. Sanadii 2002 ayaa waxaa dhashay kaamihii labaad oo loo bixiyey Camila. Iyadoo ilaa hadda 5 xayawaan oo noocan ah ay ku dhasheen Dubai, iyagoo dhammaantood halkaas lagu koriyey. Kaamaha ayaa waxa uusan lahayn kuruska geela, laakiin waxa uu leeyahay codadka geela oo kale. Sida waalidkiis oo kalena waxa uu cunaa geedaha. Waxaana la qiyaasay in sida geela oo kale uu cimrigiisu gaari karo 40 ilaa 50 sano, halka hooyadii islaamaha ay cimrigeedu noqdo 20 ilaa 30 sano. Idaha iyo ariga ayaa iyaguna ka mid ah xayawaanada wax iska dhali kara, inkastoo ay aad u yar tahay. Sababtoo ah kromosoomada idaha iyo ariga ayaa kala duwan, oo ariga ayaa waxay leeyihiin 60 kromosoom, halka iduhuna leeyihiin 54 kromosoom. Kala duwanaanshaha kromosoomyadaas hidda-sidaha ah ayaa keena in inta badan ilmahoodu dhicisoobo, laakiin marar dhifa ayaa waxaa dhacda inay ilmo dhalaan, sida ka dhacday Botswana 2000 iyo markii ka dambeysay ka dhacday New Zealand.
xayawaanada kale oo wax iska dhali kara ayaa waxaa ka mid ah eyga iyo yeyda, iyadoo la sheegay jiritaankoodu inuu aad u badan yahay lagana helo meelo badan oo caalamka ka mid ah, iyadoo ay jiraan ey dadku dhaqdaan oo asalkoodu yahay ey iyo yey ilmo kala dhalay. Eyda ayaa waxaa lagu tiriyaa inay qayb ka yihiin yeyda, oo ay ahaan jireen yey dadku muddooyin fara badan marabiyaysteen, taasoo ka dhigan inay si caadi ah farac u yeelan karaan. intaas ayaa noogu jooga barnaamijkii maanta. Intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum.